magaalada muqdisho koox dumar ah oo isku tagay ayaa bilaabay hawl ay dugsiyada quraanka iyo masaajidaba uga ururinayaan kitaabada quraanka ee go'go'ay iyaga oo kadibna meel isugu geeya si ay u dayactiraan dibna ay isugu dhajiyaan waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka diyaariyay hawsha muhiimka ah ee dumarkani ay hayaan waa koox gabdho Soomaaliyeed oo ku midoobay mashruuc loogu magac daray ololaha dib u dayactirka iyo hagaajinta kitaabka quraanka kariimka haweenkan oo ah kuwa mutadawiciin ah ayaa kitaabada quraanka kariimka ee go'go'ay ka soo ururiya dugsiyada masaajidyada iyo guryaha magaalada Muqdisho kadibna isugu keena xarun ay ku leeyihiin xaafadda Taleex ee degmada Hodan halkaas ay ku kala saaraan baalasha go'go'an ee kitaabka quraanka kadibna isugu hagaajiya sida ay isku leeyihiin iyagoo u sameynaya jaldiye cusub waxaana ugu dambeyntii dib ugu celiyaan kitaabka oo dhameystiran goobtii ay markii hore ka soo qaadeen fikradda waxay ku timid gabdhaha kamid ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dareensiiyay ama aragtay in dayac uu ka jiro kitaabka Ilaahay go'go fara badan dugsiyadii iyagoo jarjaran oo meel ku jiro marka fikradii ay noola timid gabadha waxay tiri war ma ka warqabtaan dugsiyada dib badan ayaa kitaabka Ilaahay iyo dayac baa meesha ku haysta waxaan niri bal waayahay fikradaas aan fiirino oo qaada dhigno dugsiyadii iyo meelihii inaan tagnaan bilownay meelihii markaan tagnay waxaan aragnay waxa ay noo sheegtay iyo wax ka weyn aan soo aragnay dayac aad u ballaaran quraanka Ilaahay ama kitaabka Ilaahay inuu haysto sidoo kale ayaan Cabdullaahi oo ah maamula ku xigeenka xarunta dib u hagaajinta quraanka iyo dayactirkiisa ayaa iyadoo gacanta ku haysa kitaab quraan oo go'go'an waxa ay sheegtay inay tahay mas'uuliyad darro in kitaabka quraanka uu ku baaba'o goobihii lagu xurmayn lahaa quraanka in la isxifdisiyo oo kaliya ma aha muhiimadda Ilaahay ujeedada uu ka lahaa quraanka quraanka ujeedada Ilaahay kale subhanahu wa ta'ala waxa weyn waa risaalo adduunka u soo diray oo nolosheena inay ku tadbiiqsanto la rabo xurmadiisa kooka maantana inagoo shacbul quraan la inagu tilmaamo iyo guryaheeni iyo dugsiyadeeni iyo masaajideena culimadu ku cibaadeysanaysa ay kitaabta nooca ku noqotay wax ma aha oo damiirku u dul qaadan karo annaga oo gabdho Soomaaliyeed waxaan ka dhiibinay barnaamijka kitaabada quraanka kariimka ayaa marka la keeno xaruntan waxa jira xafiis gaar ah oo lagu kala saaro la isuguna aadiyo hadba sida ay isku leeyihiin sida ay tilmaamayso ayaan Axmed oo kamid ah howlwadeennada xafiiskan horta marka hore halkan la isku keeno waan kala bixinaa wixii qoyan oo waxba manaafacaad lahayn wixii jarjaran dib baan waxaan ugu ururnaa hadana inaan dib u celino meeshii lagu asturla la geeyo wixii kalena safxooyinkiisan u daydaynaa safxada say u leedahay ama ay isku qaadan kartaan isku habeynaa markaan kala rasayno kutub walba aan lambarkiisa ansaxnaan rasaynaa uu naga sii gudbaa qolka jaldiinta u sii gudbaa laakiin qolkan waa qolka kala soocitaankana ugu dhibaato badan kitaabada quraanka kariimka ayaa marka la kala saaro safxadihiisana la dhameystiro waxa loo sameeyaa jaldi cusub oo soo bandhigi kara bilicda kitaabka sida ay sharaxayso Hiba Xasan oo u xil saaran hawsha daawacada kitaabada iyo jaldiyeyntooda waxaan sameynaa jaldiye noocan oo kale ah haday wateen oo fiican waan ku dhajinaa hadii ay wadanina meeshaana waxaan koolo uga sameynaa labada dhinac ayaan dhinacyada uga dhajinaa warqad A4 oo kale taan gelinaa kadibna kooladii aan ku marinaa kutubkii oo dhameystiran aan gelinaa hadii lacala uu meeshaan eber ka yahay waxaan sameynaa dhar loogu talagalay ayaan ku jilcinaa maadaama kutubka la rabo inuu la laabto dhar aan ku jilcinaa kadibna kooladiisa aan ku dhajinaa kutubkii oo dhameystiran ayaan maxay ahayd aan soo saarnaa kadib kutubku wuxuu diyaar u yahay in la aqristo oo lagu cibaadeysto ayuu diyaar u yahay haweenkan ayaa kitaabada quraanka kariimka ee sida aadka u go'go'ay ay waxba ka qaban kari waayaan waxa ay ku asturaan xarun kale oo ay ku leeyihiin deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho waa marxaladii labaatanina oo deegaanka Garas Baaley markaan halkaas shaqooyinkaas ku soo qabanno oo soo kala saarno waxaan halkaan keenaa kitaabada quraanka ah ee aan waxba laga qaban karin oo dib loo habeyn karin ee go'go'ay si daran una baahan in la xanaaneeyo halkan waxaan ku xanaaneynaa kitaabadii aan soo socnay ee aan waxba gelin ee u baahan in la xanaaneeyo oo dayaca laga qaado
waa markii ugu horeysay oo ay gabdho Soomaaliyeed isu taagaan howl noocan oo kala ah taas oo dib ugu hagaajinayaan kitaabada Quraanka ee go'go'an ee ku dayacan guryaha dugsiyada iyo masaajidada qaarkood waxaana ay ugu baaqeen haweenka dhigooda ee bartay Quraanka Kariimka inay kala soo qayb galaan hawshan mutadawacnimada ah ee alla dartiis kitaabada loogu dayactirayo dibna loogu habaynayo. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.